بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية الصوماليلاند ودنا موسى بيحي عبدي أنا خليها عقود ciidamada qalabka sida madaxweyne ku-xigeenadii saddexa oo xasan ciise cabdiraxmaan oo cali axmed yuusuf yaasiin oo maanta ku suman iyaguna goobtan gudoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane ciise axmed yuusuf gudoomiyaha xisbiga ucid mudane faysal cali waraabe xubnaha golayaasha wasiirada xubnaha golayaasha guurtida madaxda safaaradaha Ethiopia iyo Djibouti taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda hay'adaha dawladda saraakiisha iyo askanta ciidamada qalabka sida iyo marti sharafka kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan Abriil 20 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudanayaal ciidanka qaranku wuxuu la kowsaday aasaaskii dawladdii labaad ee ka dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu soo dhisay Boorama 1993 uu madax ka ahaa Allah u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa mudane Cabdiraxmaan oo Cali oo maanta hadda xafladan la jooga madaxweyne mudanayaal waqtigaa waxaa jiray ciidan beeleedyo wadooyinka joogay way adkayd xitaa si loo gaari lahaa Boorama dawladdii markii halkaa lagu soo dhisay waxay u baahatay dawladdii in la helo ciidan amniga suga baahida darteed ayaa lagu dhisay ciidamadii qaranka aasaaskoogii too lagu saleeyay col walba guutada ee waxa saamiga ay ku kala leeyihiin golaha guurtida waxaana la aasaasay guutadii koowaad iyo guutadii labaad too lagu saleeyay qolag walba cid kastaba beelaha intay ku leedahay golaha guurtida sidaasuu ciidanka qaranku ku bilaabmay intii ka dambaysay maalin ka dambaysa ciidanka qaranku uu sii kobcayay oo meel buu sii gaarayay waxa mudan raggii hawsha ka shaqeeyay oo mudane madaxweyne aduu aad markaa ka ahayd wasiirkii daakhiliga ee dawladdaasi rag badan oo kale maanta halkan xay ku ah oo cabdiraxmaan cawli ka mid yahay maxamed kaahin ka mid yahay madaxweyne Siilaay ka mid yahayna raggii waa maanta waa xay oo nool yihiin rag kalena waa dhinteen oo guurtida ka mid ah sida Sheekh Ibraahim Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Maxamed Faarax Sheekh Muuse Goodaad iyo rag kale badanna maanta waa mootay yihiin mudan madaxweyne hawsha la qabtay qabateen waa maanta waxaynu kaga sareeyno in mulge ku leenahay in qeyrkeeka ay ku dhaafnay oo wataa maanta aan ku jireen halkan ku fadhino nabadgeliyo intii ka dambaysay mudan madaxweyne ciidanka qaranku wuxuu qabtay hawlaha soo socda sidii maamulka dawladda loo fidin lahaa loona gaarsiin lahaa gobolada waxaan madaxweyne xusuusnahay 1997 burco xagga ciidan kama xigin
guutadii ugu horeysay oo 17aad la oran jiray ayaan ka rarnay darar weyne waxaanu geeyno og maalintaan og digina annaguna waxaan qariib baan iska dhigaanay dadkuna way nala yaabeen maalinta waa bishii shanaad 1997 magaalada og leeyahay marka cariisho dhowr cariisho yarar bay ahayd inta ka dambeysay madaxweyne maalin ka dambeysay ayuu ciidan ku sii fidaayay ilaa uu maanta gaadhay Tukaraq oo halka aan ka sheegayo u jirta 200 kilomitir sanaagna sidaas leeg waxa kale uu faa'iido ciidan keenay meeshuu degaba magaalooyinku way ku kobcayeen magaalada oo aragtan 2 cariisho yarar baa ahayd iyo 3 cariisho oo caynka lamid ah maantana waa magaalada caasimadda weyn ee hoteelada leh ee saytaad arkasaan wadako sidaas leeg yagoori sidaas leeg samakaab sidaas leeg arcade sidaas leeg ilaa la saanood meeshii ciidanku degaba waa camir maasay waanu dhismaayay waxa kale madaxweyne ku dadaalanay sidii waajibka dastuuriga ee ah in xadkii Soomaaliland la gaadho inuu ciidanku ku dagaalo maanaan gaadhin halkii laakiin waa waajib dastuuri oo nasaaran in xadka qaranka la gaadho madaxweyne waxaan kaloo ku dadaalnay sidii ciidanka jira loo tayeyn lahaa waxa abuurmay dugsiyo tababar sida dugsiga Garoyo Cawl darar weyne iyo sheekh oo la galiyay dhibo ciidankii markaa jiray lagu xireeyay laguna tababaray waxa abuurmay dugsiyo kale oo ah كلية سراكي شيخ عبد الله عسكر كلية سراكي الحجين كي هرقوافي كلية هالسنوية أبو مين أنت أصلا مو حويا وحنا وطلق علينا كنت هي إنه عيدك هذا الشرا وحكروا توبر سيناي أرضي سكولة ده oo maanta jooga macallimiinna ka ah kulliyadaha oo injineer leh oo dhakhaatiir leh oo saraakiil infantry leh maantana macallimiinka ah kulliyadaha iyo ciidamada jiidaha horaba taliyaalka maanta waxaa dhakhtar noogu maqan saraakiil 12 sarkaal oo masar baranaya oo soo dhameyn doona qaarkood sanadkan saddexna way horey noogu soo dhameeyeen oo master soo dhameeyeen mudane madaxweyne sanadkan oo quraata waxaan dibadda u diray 200 oo ciidan ah oo isku jira master ilaa askari caadiya oo waxbarasho u diray waxa maanta soo noqday 189 oo soo dhameystay waxbarashada waxa ku haray 12 ka aan ku leeyahay master bay hadda baranayaan oo qaarkood tanaskan soo dhameyn doonaan kulliyada saraakiisha ee Cabdullaahi Askar waxa dan noogu jira 100 sarkaal walkaas sarkaal waxay ka kooban yihiin ciidamada oo dhan booliiska ciidamada badda ciidamada madaxtooyada iyo ciidamada kale ayay ka kooban yihiin dugsiga Haragwaafi ee saraakiil xigeenka waxa noogu jira 80 saraakiil xigeen 6 bilood oo horena inta in leeg baa ka baxday sanad guuradii hore waxaan halkan ka nidhi inaan ardayda jaamacadaha qaadan doono oo saraakiil ka dhigan doono
waxaa madaxweyne taa naga hor joogsaday waa tii abaaraha badan dhaceen dhibaatooyinka badan dhaceen way noo suurtageli weyday inaan askartii aan ardaydii jaamacadaha intoon qaadano aan koorso u diro haddii ilaahay inoo sahlo sanadkan ayaan ku dadaalanaa in ardayda jaamacadaha la qaato imtixaan laga qaado dabeetana fieldiska kala duwan aan u diro waayo kuwii hore injineeradii hore ee soo baxay jaamacadahay ka dhigaan waddanka wax badan bay u tareen dhakhaatiirtii saasi leeg waanay noo shaqeeyaan waanay ka dhigaan jaamacadaha oo dadku way u faa'iideeyeen waxaan rajaynayaa kuwa damara inaan diro oo wax badan noo faa'iideeyeen mudane madaxweyne iyadoo abaari dhacday ee awoodeennuna ay yarayd haddana waxaan ku dadaalay inaanaan halkii un fadhina in wuxuun qabanno inaanaan dib u noqon amba wixii waxaan haysanaa halkaa ku hayno amba aan horowkac wuxuun samayno waxaan madaxweyne ku soo tusnay deerkaan ka dhisnay birjeex ee 600 mitira ciidankaa dhisay waayo ciidanku waa xoog fadhiya waxaa kaloo madaxweyne aragtay dhismaha horta 22 xafiisii hoolka ah oon ka dhisanay halkan oo aan isneri fooqan hadda jira waa kii dee dowladdii hore dhistay idigu maxaa qabsateen bal horta wuxuun ku dara meesha taana waan ku guulaysanay waxaa kaloo madaxweyne soo artay miiska saraakiisha oon saddex qol iyo hool marteed oo haddii marti noo timaado meelan seexina inaan u helo inaan isna fooqaa ka dhisannay waxaa kaloo miiska saraakiisha kale 4 qol oo lagu dhigto kombiyuutarka iyo ingiriiska oo ay macallimiin ingiriisi ay wax ku barta meesha waanay socotaa koorsadoodii waxaa kaloo madaxweyne ku aragtay halkaasi dhismaha 10 qol oo xafiisya iyo hurdo ah oo junior staff college ah oo isna dhismiha u socdo oo saraakiisha aqoonta leh ee qaybta dhexa lagu bari doono ilaahay hadduu yidhaahdo waanay u furan tahay markiiba 20 sarkaal baa gelaya waxaanay u furan tahay ciidamada oo dhan waanu aan qayb baan ka siinana waxaa kaloo madaxweyne dhinay hool insha allahu tacaala waad arki doontaa burcaan ka dhisnay oo hoolka ugu wanaagsan burca oo 700 oo qof qaada oo miiska saraakiisha burca ka dhisnay inkastoo naan weli qalabayn laakiinse waa madaxweyne axmed maxamed siilaayo wuu arkay isaga waanu furo wuu arkay qoolka 700 qof baanu qaadaa waxaa madaxweyne qorshaha noogu jira xerada burco oo hadda qayb ka mida xaasas naga jiraan 100 xaas waxaan u helay dhulkii aan dejin lahayn wasiirka biyuhuna wuxuu naga ballan qaaday inuu biyo noo gaadhsiiyey halkaan u helay dadka inaan iyadana deer ku soo wareejino sidii aan dhulkaa la nooga qaadan ee dhulkaasi aanu nabadgelino waa burco madaxweyne waxaad kaloo markhaati ka ahaydeen inaan qayb libaax ka qaadanay doorashadeennii diiwaangelintii kaadhbixintii iyo doorashadii kaleba ciidanka qaranku wuxuu ka qaatay qayb weyn mudan madaxweyne tio tamartayadu yar tahay haddana sanadkaasi waxaan caafimaad dibadda u diray etoobiya ha u badnaatee 125 saraakiil iyo askar iskugu xigta ayaan u diray 125 waxaa kaloo madaxweyne aragtay toddobaadkan soo dhaafay waxaa noo yimid dhammaan qalabkii caafimaadka ee dhakhtarka lagu wadi lahaa inkastoo naan dhismihii weli dhammaysan oo naan dhismo u samayn laakiin dhammaan qalabkii caafimaadka marka iskaanka laga reebo ama MRS-ka laga reebo wax alla wixii kale way noo yaalaan oo insha allahu tacaala waa la taagi doonaa
مدن مدحوين إن شاء الله تعالى هدي لها يراهضه أنه كوكلسون قرنكم إن أنا وحبنا نجاح كرانين وكما تيجي مدحوينه هراء مدن أحمد محمد سيلايو إنه ما أنت الدرجة عيدا كوهايستو وكحرقونا يو ودبا هيد إنه كل يرهدي إنه بحيو وما أنتنا هذا رتان قروح ذا مدحدني وعن بدو حمل ألان قبل لان قادنا إنا نسوقنو نبتقليدا قرانكا طالكا إيا دادكا إنا نسوقنو إنتي تمرتا يدا إلهي هدو يراهدو madaxweyne waxaan bogaadin u dirayaa dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo joogaan anoo ilaahay uga barya sanadkiisa in ilaahay ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad waana diga mahad celinaa soo qayb gashan waxaan ku soo dhawahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Muuse Ciise Axmed Yuusuf